dhammaanteen waan ognahay waxa ay ka dhigan tahay ku talax tegidda akhrinta buug fiican balse aqoontu ma kobcin kartaa caafimaadka maskaxdaada khuburadan ayaa ku doodaysa in ay buugaagtu ay kobciyaan maskaxda oo loo adeegsan karo in qofka lagu daaweeyo waxayna soo jeedinayaan talooyinkan oo wax ka tari kara dejinta naftaada. dooro buugga saxda ah wuxuu kaa caawinayaa inuu awood ku siiyo oo uu jawigaaga soo celiyo. inaad doorato nooca buugga saxda ah wuxuu ku siin karaa awood iyo inaad dunida ka aragtid dhanka wanaagsan. wax akhriska ayaa badi waxaa loo tixgeliyaa wax isku fahansiinta iyadoo marka buug la qorayo macnaheedu yahay in qofkani dadka la wadaago waxa uu aqoon iyo talo hayo. waxaan iska soo horbaxnay Theresa May ra'iisul wasaarihii hore ee Britain waxaan isweydiiyey caqabadaha ay la kulantay waxaan isiri maxaad kula talin lahayd inay akhrisato waxay ku bilaabi kartaa buugga uu leeyahay qoraaga reer Mareykan Sylvie J.R. ee sanadii 1978 kaas oo lagu magacaabo dalbashada riyooyinka. buuggu wuxuu ka hadlayaa 4 qof oo la daala dhacaya qaabab kala duwan oo la qabsiga daroogada ah. markii dambe waxaa laga dhigay filin waxaana filayaa inay wax ka kororsan doonto. adduunka waad ku safri kartaa adiga oo aan xataa ka dhex bixin gurigaaga. taasi maanta tiknoolajiyada ayaa hirgelisay. waxaad si walba heli kartaa buug af walba ku qoran. sidee ayay buugaagtu u dheelitiri karaan nafta? waxaa intaasoo dhan dheer in buugaagta mala awaalka ahi ay sababi karaan nooc ka baxsasho ah kaas oo ka awood badan nooc kasta oo faham ah. filimka ama barnaamijka hadda ka baxaya TV-ga waxaa lagu tusay muuqaalka halka buugga aad adiga gacanta ku hayso. sidaas daraaddeed waa marxalad awood leh sababtoo ah adiga ku lug leh. Ella Barfoot oo kamid ah dadka wax ku daaweeya buugaagta ahna qoraa dadka kula talisa akhrinta buugaagta ayaa tiri Alexis Whittle oo ah qoraa caan ah oo noloshiisa hore ay adkeyd inkastoo aanay raacsanayn Barfoot wuxuu arkay buug uu qoray Mark Twain ee Huckleberry Finn xilli uu ku noolaa guri carruur lagu hayay oo ku yaalay koonfurta London. wuxuu sheegay in akhrinta buuggaas iyo isla xilligaas inay saameyn wanaagsan ku yeelatay isaga. guriga carruurta wuxuu ahaa mid dhib badan sidaas daraaddeed Huckleberry wuxuu ahaa meel aan kaga baxsan karo caqabadaha aan maalin walba wajahayay. ugu yaraan habeenkii 9 ilaa 9:15 waan isqarin jiray anigoo toosh yar sita waxaana akhrin jiray bogogga buugga balmale waxaan dhex sabeynayay webiga waxaana gaari jiray go'aamadayda ku saabsan xilligan wax cunayo iyo xilligan nasanayo. marka ay maskaxdaada dhib ka jirto hanaanka buuggu wuxuu isku duwi karaa waxyaabaha aad ka fikirayso. habka ay isugu xidhan yihiin ayaa wax weyn ka bedeli kara maskax isku dhex daadsan. xataa haddii ay dhib ku haysato waxaad dhiirigelin ka helaysaa sheekooyinka dadka kale ee ku qoran buugga. qoraaga weyn ee lagu magacaabo Weld ayaa wuxuu xasuustay markii uu yaraa aabihiis ayaa uga sheekayn jiray sheekooyinka carruurnimadiisii markii uu ku sugnaa Jamaica. markaasi qofka sheekaynaya uu xaafadaha wareegayo gaar ahaan xilliga dalaggu soo go'ayo ayna soo warinayaan sheekooyinka ku saabsan adoonsiga. inaad dib u akhriso buugaag aad jeceshahay waxay sidoo kale ku siinaysaa xasilooni gaar ah. Bardon ayaa sheegtay inay xiriir dheeraad la leedahay buugga uu qoray Thomas Hardy ee Tales of the Defiant. markii ugu horeysay ee aan akhriyo waxaan ahaa 15 jir. xaqiiqdii waan fahmay teeskii labaad 10 sano kadib waxaan ka xanaaqay siday wax walba iskaga ogolaan jirtay inay dhacaan iyadoo aan tallaabo ka qaadin. haddana waxaan dib u akhriyay 10 sano kadib waxaanaan bilaabay inaan fahmo qaar ka mid ah go'aanadeeda. waxaa kuu soo baxaysa inaysan kaliya ahayn da'yarta waxay jecel yihiin inay wax ka maqlaan qoraaga aan ka xishoon waxyaabaha xasaasiga ah. marka laga hadlayo akhristayaasha da'da yar
buugaagtu waxay door muhiim ah ka qaadan karaan wax ka qabashada dhibaatooyinka maskaxeed ee da'yarta. waxaa haatan jira daayar badan oo wax qora kuwaas oo ka hadla arrimaha ay wajahaan, taasina waxay caawin kartaa dhallinyarada si ay ula tacaalaan xaaladaha ay wajahaan maalin walba ee ay ka midka yihiin tacadiyada iyo daroogada. habka qoraalka wuxuu caawin karaa maskaxda iyadoo la rumaysan yahay in akhrisku uu faa'iido u leeyahay maskaxda. bal ka waran qoraalka. Rachel iyo Burton waxay qireen inay nolosha qoraaga ay noqon karto mid ku dheehan tahay maskax caafimaad qabta. wuxuu qoraagu faaruqinayaa maskaxdiisa isagoo iska bixinaya wixii uu qalbiga ku hayay, inkastoo sida ay Burton qabto ay dhanka kale wax qoristu noqon karto mid qofka go'doomisa, maadaama uu qofku toddobaadyo, bilooyin ama sannado uu keli ahaansho rabo inuu noqdo si uu wax u qoro.